waxaan soo qaadanay Cabdiraxmaan Aadan Cabdiqaadir waxaan u soo wadnaa geed yar oo hortiis geed weyn oo laaba la yiri geedkii weynaa Maxamed Suweer baan u wadnaa kii ogaadeen baan u wadnaa kii wajeer soo degana walaalahan u wadnaa ilaa yaan inaan ka harna ma rabno waxaan idin sheegi candidate wasguuleed waxa way Cabdiraxmaan Aadan Cabdiqaadir oo county iyo MPbo labadaas saasina ogaatiin qof kale doc ka imaada annaga haddana wadan ogaada intaas Soomaalidu sheegayna haddaan guddigii nahay ugaasguuleed inta u badan aan noqonay maantahay aan u badnaanay Cabdiraxmaan Cadow Juga ina Aadan Cabdiqaadir Maxamed Carab ساسا كو ايتنا والسلام عليكم انا والله afkayga beeshayda والله musharaxan ku ahaan oo macna gudigan laba xibna ku lahayn waxaan raali ka wadanahay inay alxamdulillah ninkii joogo aan qaadno oo Cabdiraxmaan Aadan Cabdiqaadir wada joogo loo yaqaano xafladan aan qabanay u dambeyntii waxaan siin rabnaa shahaadada ninkii qoyska uu gartay oo ku soo baxay tirada dheeriga ee Cabdiraxmaan Aadan Cabdiqaadir Cadow Juga loo aqaano waxaan rabaa Cadow Juga inaan ku wareejiyo waraqda aan ku wareejiyaan rabaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan salaamayaa ummadda iskugu yimaata halkan qoyska jifada hoose reer ugaasguuleed oo murtiyeedkan uu ku saabsan yahay anagoo gudi reer ugaasguuleed saddex maalin buu shir noo socday waxaan ka tashanaynay aayaha iyo siyaasadda qoyska haddaan dib idin celiyo sida ku bilaabatay samaashadan qoyskan in badan buu kala maqnaa 15 sano siyaasadda ku kala maqnaa qoyska wuxuu dantiisa gartay in la isu wada imaado midnimo la raadiyo tolnimo la raadiyo waxa dad kala geeyay waxay aad siyaasad dhaqan kale ma geeynin dhigna kale ma geeynin dadkan ilmaadayro isla dhasheen waa qoys wuxuu ka kooban yahay 6 raayood oo aad u wada dhashay aad isu xishmeeyo dhaqan wanaagsan ka dhaxeeyo tolnimo ka dhaxayso laakiin hadafka yar isku yara gafay 15 sano wuxuu ahaa siyaasadda in laga heshiiyo tolka kala geeynin wanaagi iyo tolka xalkiisa in laga hadlo ya 2 sano ka hor ay qoyska isku yimaadeen qoyska waxay suubiseen gudi inuu hago ayaha qoyska ka shaqeeyo gudiga xubnihiisa daan si dhaxgal wuxuu ka kooban yahay 12 oday iyo chairman-kooda 6 qoys oo nin walba 2 oday u keenay iyo chairman-ka u dhaxeeyo dhowr shir baan suubinay ilaa 6 shir baan suubinay aan ku suubinay wajeer habasweyne aba qoray intaas aan ku kala suubinay shirka noocaasna waxaan raadinaynay qoyska taladiisa inay toosto ay haagto wixii kala geeyay siyaasad xumo ee dan kala geeynin maanta jimcada haddaan soo dhaafnay maantana isniin ay tahay arbaca ay soo galayso talaada ay soo galayso waxaan u fadhinay waxaan ka qaadnay arji ka qaadnay musharaxiinta reeween inay u istaagaan baarlamaanka Wajeer South qoyskan qoys aad u bilaaran waaye aad u tiri badan qoyska Maxamed Suweer dad qoyska u tiri badan waaye waxa kala geen jirtay siyaasi xumo oo isla istaagi jiray ana taa ka hortagayno waxa ilaa badan aan soo marnay waxaan nagu dambeysay inaan ka hadalno musharaxiinta ay keensadaan waraaqihii codsiga ay ku doonayaan baarlamaanka Kenya inaan u soo qaadano qoyska ana ula tagi doono Maxamed Suweer codsigii 2 nin baa keensatay horaana diman way jira codsi geysteen laakiin qoysaska qaarkood oo jifooyinka ka tirsan ugaasguuleed way iskala reebeen qoys baa nin soo qaatay qoysna nin kale soo qaatay labadan nin iyaan rabnay annaga inaan u kala dab qaadno aan raadino si wanaagsan hal qof aan kala soo baxno nidaamka iyo sharciga u degan gudiga nidaam buu leeyahay sharci buu leeyahay gudi chairman buu qabaa vice chairman buu qabaa secretary buu qabaa vice secretary buu qabaa treasurer buu qabaa iyo odayaal kale oo iyaga members inta xubno isku duuban isku tale isku tusaalahan nahay markii ay imaatay
xulashadii si loo kala xulan lahaa loo soo qaadi lahaa hal candidate qoyska loo soo qaadi lahaa arinta iyada baan ka fariisanay arinta iyada dhinac baa loo batay guddiga waa 13 markii lagu diro chairmanka 12 waa xibnaha memberska chairmanka asaga waa ka madax banaan yahay haddii ay imaato ilaa barbar dhaco lix la noqdo inuu xisaabta isa u dheelitiro ya lagu tago chairmanka laakiin inta kale xibnaha isla eg waay lixda qoys oo min laba arintii iyada baan ka fariisanay qaabkii loo soo qaadi lahaa ninka musharaxa aan ka hadalnay wax baan isku yiri qaban waayeen laakiin tiradii iyo tayadii meesha fadhiida marka iyada culayska meel buu u batay 9 nin baa u badatay Cabdiraxmaan Cabdiqaadir Aadan Cadoojo loo aqaan 9 ninba waa nimanka garabkayga taagan dhaxdan ku jira aniga xadir bay wadiyihiin waraaqii codsiga uu geystay marka la fiiriyay shacabkana ee nasuugayna warbixin aan siin aan rabnay annagana aqalbalad aan qaadnay meesha loo batay waxay noqotay Cabdiraxmaan Aadan Cabdiqaadir sida ay tahay nin kale walaalkan baa jiray aan sugaynay ilaa 3 bari 4 bari aan sugaynay inuu noo imaadaan rabnay wuu noo iimaani waayay fariimo badan baan u dirnay aad baan ugu gogol badinay way suurtagal waayay inuu nagu soo noqdo ninka asaga ah ninkaas waa nin walaalkayna rugcada siyaasi waay qoyska soo hogaamin jirnay xishmad iyo sharaf baan u leenahay arka ma aflagaadeynayno nin nala dhashay walaalkayna waaye kuusan waaye maanta ninka walaalkiisa ayaa ka aqli batay inuu soo raaco ayaan rajaynaynaa ninka walaalkiisa Cabdiraxmaan Cali Xasan inuu soo raaco Cabdiraxmaan Aadan Cabdiqaadir anagoo guddiga afkiisa ku hadlayno tolnimada waxa ku jirta in la isu samro hadduu ninka walaalka meel uu maarta kaga bato sidii balanta markuu la kala qaatay hadduu nin cod dheeraado ninka kale inuu asaga uu ku wareejiyo aqlabadii qoyska iyadoo qoyska 6 raayib ay raali ka yihiin anaga burbur qoys diyaar uma nihiin faaruq diyaar uma nihiin waxaan doonaynaa qoyska oo mid ah sida wasguuleed shacabkiisa odayaashiisa gabdhihiisa dhalinyartiisa ee nagu dhiibeen go'aanka asaga yaan go'aankii si xaq uga soo baxnay annaga rag wax uu isku gafi karaa waxyaalaha isku yara dawmaro oo ra'yi way jirta laakiin wax lagu kala taga ma jiro qoyska culayskiisa dhinacan buu soo jiraa Cabdiraxmaan Aadan Cabdiqaadir baa loo batay niman odayaal duq adeerkii ku jiro chairmanka ku jiraan kooxda ra'yi kale ba ayagana istuseen laakiin niman qoyska nacab iyo talada qoyska nacabna maaha iyo ninka walaalkay naga maqan inta waan doonaynaa anaga guddigayna naga ka badan anaga doonaynaa wax alla wixii qoyskaas iyo nabadnimada lagu helay midnimadiisi uu hor ugu socdo Cabdiraxmaan aan ugu geeyno qabiilkeena Maxamed Suweer waxay jiifo hoose waatan ugaas guuleed geedweynahana geedka Maxamed Suweer waa anaga isku duuban guddigeena chairmanka suldaanka ninka inta soo hogaaminayo sanad tagayn ahaa anaga isku duuban insha Allah cadow u geynayna geedka Maxamed Suweer duulahayd waxaan sheegay bulshaweynta reer ugaas guuleed bulshaweynta Maxamed Suweer bulshaweynta ogaadeen iyo Soomaalida kale nala degto Wajeer South hamigayna siyaad mar hore u bilowday sidaan ku soo saarnay qofka inta kali aan la aamusnay waxay ahayd sida lagu soo saari lahaa inaan soo saari lahayn sida lagu soo saaraa waan ka hadlay sida loo kala batay waan ka hadlay ninkaan soo saarnay Cabdiraxmaan Aadan Cabdiqaadir waa ka hor fadhiyo waxaad ogaanaysaan tolka inuu si nidaam leh si wanaagsan oo wada jir ah inuu soo qaatay Cabdiraxmaan Aadan Cabdiqaadir anagana oo loo tagi doono geedweynka Maxamed Suweer adeerayaasha naga badan aan ku celin adeerayaasha naga maqan suldaankeeni iyo odaasha qiimaha la duq adeerka chairmanka anaga u tagi doona maadaama aan nahay shacabka kale ra'yi wal isku dawmari kara meel ay joogan iyo ninka walaalkayna asaga musharaxa ahaa oo ruucadaga siyaasadda noo aha qoyskan hogaamin jiray intaas sana inta kuma daynayno inaan asaga cadow isu geeyno walaalkiis cadow uu soo raaco soo gacanta wato uu la imaado shirki Maxamed Suweer uu la imaado taasaan anaga ku raja weynahay ana shirka waan furay ahayd waana furay faafayna ka bixina way ahayd sidii ninkan lagu soo qaaday nidaamka lagu soo qaaday iyo guddiga waxaan kale xibnaha intaan kale ahayn inta kale waxaan ku wareejinay walaalihii kale guddiga odayaasha garab taagan waad mahadsantiin السلام عليكم
ummadda meesha isugu maad kulli waan salaami salaanta islaamka ku salaami assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nin walba waxaan ku salaami munaasabadda uu ku fadhiyo hadalkii horta waxaa dhameeyey cabdixakiim khalifa dhameeye aniga magacayga barre maxamed nuur ali dhahaa guddiga ka mid ahay waxaan idin sheegi waasguleed qoyskan waasguleed leeyahay guddiga waxaan idin sheegi guddiga wuxuu qabsaday July bishii 7 2024 ilaa 2026 hadda aan ku jirno intaas wax baan wadnay shiraaran wadnay sukaanka qoyskan wadnay tii way noo soo dhamaatay cabdixakiim idin sheegay ilaaha mahadle goolaan gaarnay guddiga waxay loo dhisay waxay ahayd in si lagu kala nidaamka lagu kala bixin lahaa labada nin oo noo taagna laba nin oo noo taagna Cabdiraxmaan Ali Xasan iyo Cabdiraxmaan Aadan marka tii ahayd way noo soo dhamaatay maanta noo soo dhamaatay sababtoo ah meeshan doorasho kuura lagu kala baxaa kuuri waan sameynay annaga hadda runtii marka idin sheegno labada nin kalma jeclin laba nin walaalo way annagana walaalahayn way kulli marka aatay laakiin sidii tirada waxa u batay Cabdiraxmaan Aadan Cabdiqaadir marka way middo fariin yaraan u sheegi Soomaalida ogaadeenka Maxamed Suweerka wixii wajeer South kuura kule waxaan u sheegi annaga qoyskan waasguleed falaag beera waxa la dhaho ninka annaga aan u dhiibanay talada oo waasguleed ka soo baxay waxa way Cabdiraxmaan Aadan Cabdiqaadir nin kale oo gadaal ka imaaday qaaya hadii wajiha South Maxamed Suweer guddigu sameeysan doona aan wayno biinimada aan wayno county haday noqoto ninka county noo aadayn asaga way annaga falaag beeragayna waa Cabdiraxmaan Aadan Cabdiqaadir nin kale oo hadda maanta noo istaagan ma jiro waasguleed intaas in awaatiin aan rabnaa waasguleed meel uu joogo dal iyo dibad inta inuu ogaadaan rabnaa waxa kale oo rabaa inaan haddana aan u mahad celiyo guddiga walaalahay oo doorashadii nala galeen oo garab noo noqdeen aadan ugu mahad celini waxaan u mahad celini dadkii shacabka haddana na soo ayiday oo maanta meesha noogu imaaday fadhigan waxaan idin sheegi candidate-ki waasguleed waxa way Cabdiraxmaan Aadan Cabdiqaadir oo county iyo MPbo labadaas taasina ogaatiin qof kale doc ka imaada annaga haddana wadan ogaada intaas Soomaalidu sheegayna waasguleed horta waxaan ku hadlaynaa waxa leeyahay ninka aqli badan hadoo ka aqli badan horta hadlo ku xaalufiya hadoo gadaalka marana ku ceebaya waxaan ku hadli lahayn bal laba karta inta ay nimanka sheegaan baan isla qabnaa wadankan annaga soo qaadnay codka u batay miisaanka u batay waa Cadow Aadan Cabdiqaadir وكاس عبد الرحمن عضو باب لون قناه عبد الرحمن تن waa aragnay كل دheer ma jiro saadarteed ninkaas asaga oo baan annaga ku nasiibsanaynaa ilaahay baa risqa bixiya ilaahayna waxa ka baryaynaa inuu alla nagu guuleeyo ma gaast wixii kale oo ku hadli lahaa waadu la maray ma gaast ilaahay nagu guuleeyo bismillaah الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام الله بقى مهد سبحانه وتعالى ونسوق قرسي ماشي حد أن جوجنو كنت وحيه السفر دار مرة وحودها 2024 2023 بأهد 24 مهن إلا 2024 ilaa hadda saacadan oo 26 ama intaas marka ana beesha ay shir ku soo jirtay deadline-ka u dambeeyay shirkan taariikh 9 bilowday 10 11 ay ahayd macnaha talada beesha in la soo gabagabeeyo musharaxa ay beesha soo qaadan doonto marka annagoo danaynayno annagoo xeerinayno annagoo dhinacyo badan fiirinayno annagoo walaalnimada iyo wada jirka iyo wax badan fiirinayno musharaxiinta laba ay ahayn odayaasha hortayda u sheegeen nin uu joogay oo uu soo ayiday yeeritaanka beesha iyo guddiga ninna nooma imaanin waanu tixreebnay waan wacnay waan raadinay noomuusan imaanin marka annaga meeshaas waxaan ka aragnay nin wax rabo iyo nin wax rabin waa la kala yaqaanaa ina rabitaan meesha ay jirin oo rabitaanka uu yar yahay yaan u aragnay ayo taas tahay ayaan u codeynay dadkii waxaa la noqday 9 iyo 3 anigu ku hadla afkayga iyo afka beeshayda oo la musharaxan ku ahayn oo la macna guddigan laba xibna ku lahayn
waxaan raalli ka wada nahay inay alxamdulilah ninkii joogo aan qaadno oo cabdiraxmaan aadan cabdiqaadir cadowjuwa loo yaqaano marka tolka qaadida ninkan waxyaabo badan buu fiiriyey waxaan u aragnay inuu mudan yahay nin siyaasad dhowr jeer soo galay oo alxamdulilah rabbil caalamiin tolkii siduu raba ka waayay oo maanta garab qabsi macnaha ninkii in la qaado u baahnaa uu yahay waxyaabo badan baan fiirinay walaalkaan wax badan baan soo dhisnay nacib uma qabno kanna hadee wax alxamdulilah rabbil caalamiin isagana waa nin siyaasada u hawooday waqti badanna soo lugooy inaan safartan asaga gacanta qabanno iyadana aan ugu hiilino iyadana waan fiirinay hadduu isagana joogo mudnaantana asaga inuu leeyahay aan arkayno inaan annaga iyo tolkeena iska neetirno arrintaa iyada arrin loo baahan yahay maaha marka waxaan caddaynaynaa inuu candidate-kaayna uu yahay cabdiraxmaan aadan cabdiqaadir wixii dheeri oo maqana saa raadinaya asaga iyo odayaashiisa annagaba aan ka mid nahay ayaa wax naga maqay raadinaynaa ilaa meesha u dama insha Allah taala waxaan ka rajaynaynaa geedka maxamed sir inuu ka soo gudbi doono geedka ogaadeen uu gaari doono oo kursigaasna ku guuleysan doono maxaa yeelay niyada qeyr baa laga rajayaa niyada qeyr baa laga rajayaa marka anaga waxaan cadaynaynaa guddigii inuu meeshan fadhiyo khilaaf kala ma jiro waa la kala batay alxamdulilah rabbil caalamiin ninkaana badnidu baan ku soo qaadanay marka saasaad ogaanaysiin أنا أنت أسمع كوسو قبينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هذا الكيد مصيب بدنو هدان قدقي نهاي واسكولاد أنت أبدان أنا نقول نمان تاي أنا أبدنا عبد الرحمن عدو جوا إن هذا عبد القادر محمد عرب ساسا كويس والسلام عليكم. واسكولاد السلام عليكم. وحنا قدقي واسكولاد ودورتي oo dhahay noola taliya nagana taliya tala waan soo gaarnay talana waa tii ilaahay tii aan soo gaarnay waan ku guuleysanay tolkeena ula imaanay guddigan wuxuu ka koobnaa 13 9 ala codi 4 maalin 5 maalin baan fadhinay adduunkan ilaahay wuxuu ugu talagalay inay wax ka dhinaadaan wax isku toosan lama arkayo haddii aan codeyne guddigii uu codeeyey uu kala batay kan maqa naftiisa intaasoo jeer aan u soo codeyne 3 jeer baan soo dhisnay walaalkayna uma qabno waxaan soo qaadanay cabdiraxmaan aadan cabdiqaadir waxaan u soo wadnaa geed yarow hortiis geed weyn oo laaba la yiri geedkii weynaa maxamed suweer baan u wadnaa kii ogaadeen baan u wadnaa kii wajeer soo degana walaalahan u wadnaa ilaa yaan inaan ka harna ma rabno waxaad ogaanaysiin ninkaasaan u soo qaadanay guddigii uu soo qaatay macal beeshi macal tolki wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ka hadli lahaa waa laga hadlay raggii iga horreeyay ayaa ka hadlay waxaan ka hadli lahaa waxyaalo badan baan soo marray galabta waxaan wada joognay suldaankii reerka iyo chairmankii guddiga inaga arrimo badan baan isku soo qaadnay maadaama shalay aan ballan qaadnay tolkeen aan u ballan qaadnay 5 casho gudahood inaan wax ku soo gabagabaynayno muddana ay halka joogeen qaris la soo galay baawro la soo kireystay huleelada la jiifo waxaan isku daynay inaan soo gabagabayno 5 casho gudahood inaan ku helno raggi kale naga maqnaa way suurtogeli waysay waliba anagoo rajo qabno in dadkaas aan ilaa berri bardama aan sugno galabta markaa wada tashi la sameynay suldaanka iyo chairmanka aniga arrinta way dhici waysay waxaan noo soo baxday walaalahan inaan meeshan ku hortaagnaanin amba way naga sugayeen 5 casho noo qabteen inaan wax u soo raadino inay suurtagal lahayn meel cidla oo been aan ku maaweelin haqa iyo xaqdarrada isma garabga isma raaci karaan dulan badan baa meesha ka socday ilaa shalay daraato waanu qarinaynay ninkii wax rabay anaga waan u yeernay guddi haddaan nahay xoolaan qalnay waan macsuunay dad baan baawur ku keennay rabitaankii dadkii ninkii wax rabay waan noo moobaanay ninkan cadow aadan cabdiqaadir baa noo yimid raggii kale way nagu diideen waxaan ku darnay 2 maalmood oo kale shalay iyo maanta ku darnay
in raggii aan helno inoo yimaadaan way shaqayn wayse bini aadanka dadka lama qasbi karo nin walba rabitaankiisa inuu la yimaado oo wax uu rabo u sheegto ayaa muhiimadda annaga waxaan u aragnay ninka wax rabo oo tolkii wax ka rabo tolkii wax ka raadsanayo haqa ku taagan inuu cabdiraxmaan aadan cabdiqaadir yahay marka waxaan go'aan gaarnay inaan waqti kale sii dhumanin waxaa kaloon u taagannahay oo ballan qaadaynaa cid alle ciddii wax tabanaysa meeshay joogto inaan uga daba tagno hadduu odaygii yahay chairmanka anaga yahay hadduu suldaanka yahay hadduu cabdiraxmaan cali xasan yahay cid kasta waxaan ballan qaadaynaa inaan ka daba tagno dad badan baa hadda u arki doona inaan anaga jabinay nidaamkii iyo waxyaalihiisa laakiin xaqan ku taagannahay saan aaminsanahay marka waxaan diyaar u nahay inaan odayaashiina raadino iyo ciddi kale oo wax tabanayso oonana walaalkayn ninkaasaan soo qaadan annaga waxa adduunka nin walba waxaa lagu kala baxaa cod majority lead soo mahayn majority wuxuu soo qaaday cabdiraxmaan aadan cabdiqaadir marka sidaa awgeed faataxadaha ku marana wax colaada ma jirto wax dhibaato ma jirto wax tafaraaruq ma jirto sidaasaan ku kala badannay sidaasaan maanta meeshan u fadhinaa de khayr allah ka dhigo wixii kala dadaal samaynayna waa samaynayna wassalaamu calaykum xafladan aan qabanay u dambeyntii waxaan siin rabnaa shahaadada ninkii qoyska uu gartay oo ku soo baxay tirada dheeriga ee cabdiraxmaan aadan cabdiqaadir oo cadowjuwa loo aqaano waxaan rabaa cadowjuwa inaan ku wareejiyo waraaqda aan ku wareejiyaan rabaa waraaqdan iyada waxay ka socotaa guddiga ogaasguuleed waxaana ku socotaa oo loo dhiibay oo ogaasguuleed u gartay honorable cabdiraxmaan aadan cabdiqaadir oo loo aqaano cadowjuwa waxaana loo soo xushay MPga Wajeer South 2027 duu ilaahay na gaarsiiyo shahaada waxaa arrintan ka noqdo marka ansixiyey raalli ka ah magacyaha aan tarin doono Barre Maxamed Nuur Abdixakiim Khaliif محمد عبد الله إسماعيل بشير آدن عبد معلم إسماعيل آدن غورقاب سياد كنو عبد النور محمد إدريس وسجال كقف عن شيء إنه إدريس ورقداس عن كوري جن عبد الرحمن congratulations ما سنت خير الله كسي نصيب منك ما قصانا إن عولي أقول لاقو نصيب منك يمين نصيب منك ما قصانا إن عولي أنا ودي هرمار النار الغنور بحب نفطي وقتي وحب نصيب له كسيبي أنغونا نظام كنا يسبانو نيري